يدول قبر حكمته وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم gabadhaasi wax kasto boqortooyo u baahnayd waa la siiyay kursi weyn oo sariir boqortooyada waa haysatay oo haduu soo arkay dawlad meel ka dhisan maxaa ku jaban waa kan waxa ku jaban wajatuha wa qawmaha yasjuduna lishams waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceed caabuda ilaahi sokadi oo shaytaan uu jidkii alle ka weeciyay oo lunsan baa soo helay buu leeyahay iimaana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin waraaqay inta soo qortay buu dhaqaaq waraaqdii baa loo geeyay qisada maxaan uga jeedaa natiija waa maxay قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين نتيجة وامحي هدهد أيا وحو الصبابي إن أي بغرطة يدني إسلام طائي تلاهضه إني ظلمت نفسي إلهي ونفتي دواد ذلمي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين هدهد كشقاد وقبطي وامحي وحو قرطي إساقا هي قولة إن أنا يصفقرنا إن حتى هدو التوحيد كوشيق لها dan maxaa xal ah waxa xal ah wuxuu dunida ku ogyahay cid ay safgaranayaan oo ay safgaranayaan quraanku waa ka tilmaamaya inuu nabi Suleymaan lahaa ya ayuha naasu ulimna mantiqa at-tayr nabi Suleymaan khudbadiisa waxa kamid ahayd dada waxa nala baray afshimbiraadka nabi Suleymaan afshimbiraadku yaqaan hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaarsiiyo isagana afgaranaysa qoladana afgaranaysa tawxiidkana sharxi karaysa qof muslimaan shaqada qaban karin ma jira hatta haddaanad afgaranaynin dadka daacad noqon kartaa dadka diinta waad gaarsiin kartaa maadaama shimbiriba uu ku guuleystay inuu bulshadan islaamiyo waxaan leenahay ikhwati fil aqeeda waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan meesha culuma joogto oo wadaada jooga oo hebel iyo hebel baa jooga dad diinta sheegaya jooga وروح مسؤوليته كما دعده وهي قرآن كوحو كورمية مقالة صدح رسول ديدي صدح رسول مقالة ديدي هدانا نمان صدح دا الرسول باهيني ودين شيء واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون تذكر واحد شكتاب على الله سبحانه وتعالى تصالى ونكتاب مقالدي صدح ذا الرسول أيما إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إلهي وحكى ورمي سبحانه وتعالى مقال الرسول الله دري مركزي بينسي مركزامت كلا الله دري مركزي بينسي مركزامت صدحات الله دري هدات سوق شو مقال صدح رسول ديدي محد سمعين لهي رسول شريعة من النبي كلها صدر منذرين هذا سام مفسرين تقارقبان أما رسول الله هذا حق الرب كاتبين magaalo saddex caalam oo ka waaweyn ay joogan oo saddexdaba la diiday ama saddex rasuul oo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhageysan waayo hadaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd halka yaabana istiraahada shaqadii rasuul shaba laga diiday adiga maxaa ku yaala laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimka isudiye wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ابن هبيرة وزير كله رجل عالم كهابا وحليه قصة ياب كذا وحكم إذا بيقولي إن كان مركي ألا سفيني لقوا ما سفينين علم لا ما وحبل لقوا مشيين وحل لقوا شيء قرا محي وجاء رجل إنه يمي حقيقة يمي وجاء من أقصى المدينة رجل كو حلت المامي مو هينين حاضرة ما لهن علماء عمر رسوش اللي قد دي شوقي مقالة الدعل كيدو شوقي أقصى المدينة بكيمي وقال القرآن كنت الماما يسعى warku markii uu soo gaadhay rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya la leeyo rooraya oo raba shaqada inuu dhaqso u qabto markuu yimina wuxuu sameeyay ya qawm ittabi'u al-mursalin bulay janb ar-rusul buka hadlaya wuxuu leeyahay ya qawm ittabi'u al-mursalin wartalka yow rasuulada raaca waayo laba sababood ba ku raaca bulay ittabi'u man la yasalukum ajran raaca midaan ajar idin weydiisanin ajarku waa maxay waa midaan magac maamuus lacag siyaasad waxba ka doonaynin qofka bini aadamka hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kale oo ku qoran oo ayna danahaaga adigu wadato
in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya. laakiin quraanku markuu rususha ka waramay fi suurati shu'ara nabi kasta sloganiska ambiyadu sideen ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ba kamida ilahi kaligiin la caabudo maxaa kaloo nabi kasta la laha ku dadka qul la asalukum wax ajra idin ma weydiisanaya ku dhabala laha rususha waxa la leeyahay dawaa rasuulka ilaahay soo diray dadka waxaad u cadeysaan ma asalukum alayhi min ajr xoolo idin kama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxa raacdaan cid aan dan idin kala hayn inay diinta ilaahay idin gaarsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wa hum muhtadun iyagu hanuunsan. quraanku wuxuu inooga waramayaa laba rasuul hadaynu kuwii hore xataa culimada tafsiirka qaadano quraanku wuxuu ka waramayaa laba rasuul oo talkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyay oo haddana la beeniyay oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeyahay war rususha la raaco. ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay qaala rajulani min alladheena yakhafuna an'ama Allahu alayhima nabi Muuse iyo nabiyullaahi Haaruun reer banu Israa'iil baa loo soo diray. reer banu Israa'iil dulli iyo adoonsi bay ka soo saareen. ilaahay subxaanahu wa ta'aala bad buu kala jeexay fircawn iyo kooxdii baa la halaagay. laakiin waa halku ka bilaabmay jihaadku awwal umma jihaad la faraaqoom kan bay ahaayeen. waxa lagu yiri soo ma arkaysaan in ilaahay inta soo halaagay idinka hadaba waxa idin saaran in jihaadtantaan oo baytul maqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum dhulka alla idin qoray baa la yiri gala. waxay yiraahdeen anagu galimayna hadii ay ka baxaan baanu galaynaa. markii lagu adkeeyna waxay yiraahdeen adiga iyo rabbiga dagaalama adiga iyo rabbiga nabi Muuse u dagaalama innaha huna qaacidun annagu halkaanu sii fadheenaye fircawn ba ilaahay iyo adaa u bariyo gacantaada lagu burburiyay qoladanna adiga iyo rabbiga isku dayaba yiri anagu waa sii joogeynaa. laba rasuul baa la diiday markaas oo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay quraanka wuxuu ku sifeynaya laba nin oo kale aan rasuul ahayn oo waa maxay qala rajulan min alladheena yakhafuna an'ama Allahu alayhima qala rajulan wax sifo kale lama socoto mujarrad rajulan baa lagu sifeeyay laakiin maxaa la raaciyay min alladheena yakhafun an'ama Allahu alayhima laba nin oo kuwa alla ka cabsanaya kamid ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku nicmaystay geesinimo iyo raganimo iyo kala adeeg ayaa waxay ku yiraahdeen udkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. wara albaabka uga gala isku tuura madax u gala hadda samaysan in dhulka ilaahay baa idin qorayo quraanka la idin ku sheegay. quraanku wuxuu inoo sheegayaa al-ardh allati kataba Allah salaadi baan la kali kadibna waan kugu dareynaa walaal joojinaya dhabayna hadii ay maxaa wax ka dhimayahay dadku taasoo waxa lagu yiri gala qisada dhan waxaan uga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniyay ka dhinac hadlaya. waxaan ku soo koobayaa dariska dhamaantii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam goorma rasuul laga dhigay markiisa rasuul laga dhigay imisu xambaarsana iqra bismi rabbika alladhi khalaq waa maxay waa nabinimadii rasuulnimadana culimadu waxay yiraahdaan yaa ayuhal mudathiru qum faanzir ka oo dig baa la yiri kan istuudubayo qum faanzir markii la yiri cilmi inta leeg ba ku soo degay yani waxaan oran karnaa waxoogaa ru'yada ku arkay iyo labada aayadood quraanka baa la tilmaamay. waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaarsiin karin ma jiro laakiin waxa laga rabaa waxaad garanaysaa inaad gaarsiiso. nabigu wuxuu yiri ballighu anni wala waaya ballighu ma shiitum lama oran ballighu anni buu ku yiri nabigu alayhi salatu wasallam aniga wixii aan keenay dadka iga gaarsiiye laakiin waxa uu keenay dadka la gaarsiinaya waa maxay kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu hadaba 7 aayadood mid kamid ah faatixadana ha noqotee dadka gaarsii baa la yiri. idan waxaan ku soo koobaya dariska kani dantan kale iyo dhami waa hal mas'alo ah war ma dareena mas'uuliyadda inay diintan mas'uuliyad inaga saarantay oo inaga saarantay inaynu hiil iyo hooba siino oo inaga saarantay inaynu faafino
oo nafteenna iyo gurigeenna iyo qaraabadeenna iyo dadka inoo dhow iyo basharka intiisa kaleba inaynu gaarsiino. waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nabiga iyo taabiciintii baa iska xil saartay oo faafisay. imikana waxa muslim oo dhan loo gumaystay u socon weyday inaga isku koobnay oo waxba waynu sheegi weynay, waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noolay siiba kuwiina kan gaalada dhex degani. hadda cudurdaar bay aakhira idiin noqonaysaa gaalka lagu dhex joogi karo haddii aad diinta sheegtaan. dacwada waxay ka mid tahay waxyaabaha banneeya in gaalka la dhex joogi karo. haddii kale aakhiro joogistiina xataa ina cudurdaar weydaan baan ka baqaya. waa mas-uuliyadiinni, waa cudurdaarkiinni, waa dantiinni, waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican. waayo qofka diinta soo gala wuxuu camal sameeyo dhan in leeg baa ilaahay adigana kuu qoraya. haddaad midhuun islaamka ku darsato midhkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagugu qoraya. mar hadda adigu 10 salaadood ma tukan kartid, laakiin haddaad 10 ku darsato maalin kasta 10 baad tukanaysaa. haddaad rabto markaa inaad jarkaagu bato oo aad aakhira badbaado oo aad nabi maxamed safiir rasmiya ka noqoto, ilaahay diintiisa la faafiyo. صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ugu horeyn waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo albaabada ilaahay waa fur. qof waliba oo muslimi horta ayuu ka daalin inuu ilaahay baryo. ilaahay baa ballan qaaday inuu ka aqbalayo, bal sheegay inuu ka xishoonayo adoonkiisa inuu gacmaha soo taago alla ka aqbali waayo. uu ka aqbalaya. idan kalsooni isku beera markaanaysa ama dhibta ka cabanaysa in ilaahay dhibta ka qaado, xanuunadana ka qaado, islaamnimada iyo diintoodana ku sugo. innagana islaamnimada iyo diinta in alla ina fahamsiiyo, inugu sugo kuwii xambaare ummadda inta kala gaarsiiyana inaga dhigo. sallallahu ala nabi muhammad wa ala